السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواada xarunta Banaadir Research Consultancy and Evaluation Center iyo platformkeena Lambert e-learning platform. Markan waxaan idin wadnaa bishaar aad weyn. Waxaan idin diyaarinay course-ka How to Write and Publish a Research Paper ama Successful Article sida loo diyaariyo loona publish kareeyo. Course-kan waa course-ka ugu dambeeyo qaybta Diploma in Applied Research and Statistics. qofkii safarka soo waday waxyaabo badan ayuu barta maasha Allah hubaal ahaan oo ilaa iyo 5 koorso soo hore soo qaatay marna 8 koorso aan dhihi karno maadaama mid kamid ay 4 program lagu baranayay inta qofkii soo maray marka wuxuu joogaa halka ugu sareysa geedka. Okay, habali ayaa leenahay si hordhaca. Sidoo kale waxa koorskan ku baran doonaa wax loo yaqaano sida aad u qori karto manuscriptigaaga ama article-kaaga dibna aad u publish gareyn karto inagoo ku baran doono journalist kala duwan publishers kala duwan mid walba ay waxyaabaha mostly marka ma taqaana related u leeyahay iyo sida loo jeegareeyo journalku inuu yahay indicated school-based indicated web of science iyo sidoo kale Q waxa uu yahay 1 2 3 sidoo kale aan qiimeyn karno site scores-ka impact factor-ka iyo waxyaabaha la midka ee marka aadka loo isticmaalo markii article-ka la qorayo. Okay, sidoo kale waxaan ku baran doonaa technicals la xiriiro sida marka ma taqaanahay open access journalist-ka loola macaamilo ama subscription journalist-ka oo marka hadii lacag inaad bixiso aadan dooneynin oo kale. Okay, mid walba kulli faa'iidadiisu leeyahay mar raba inaan hor dhaco. Sidoo kale waxaan ku baran doonaa markii qaybaha yar ee hordhaca laga tago sida aad manuscript-igi ama article-kii aad u qori karto sida caadiga article-ka inta la publish gareyn manuscript ayaa loo yaqaanaa iyo sida loo soo qiimeeyo in ma taqaana journal manuscript structure-ka marka author structure-ka uu ka rabo marka ma taqaanahay marka journal-ka publish gareynayso sida loo soo eegto dinna loo follow up gareeyo oo marka loo raaco loo qoro oo anagoo caadi u qorinayo course-ka qayb ka noqon doonta ugu dambeyntiina waxa baran doontaa sida loo publish gareeyo. Contentskaas aan ka sheekeynayo halkan ayaa si fudud uga heli kartaa adigoo www.lambert.com research and statistics then how to write and publish a successful paper adigoo imaanay. Section-keena koobaad sa arkayso overview. Section-keena labaad si qurux badan waxaad ugu baran doontaa indicated journalist sida journal inuu yahay mid la aqoonsan yahay ama la aqoonsanayn iyo farsamooyin badan oo la isticmaalaan halka ku arki doonaa. Sidoo kale information sida loo raadiyo ma aha halkan markaad joogto sida book markaad qorayso inaad Google Scholar iyo mar walba aad ka daba wareegto. Insha Allah ta'ala technicalska kala duwan ayaa halkan kugu bari doonaa. qaybta ugu weyn waa tan oo aan ku baran doono sida manuscript-ga ama article-kii loo qorayo bilaa ilaa dhamaad sida caadiga 5 waaweyn uu ka kooban yahay mararka qaarna 4 ayuu noqdaa kolba manuscript structure-ka journal-ka aad ku publish gareyn rabto ayay ku xirantaa maadaama aan kor ku soo baranay sida journalist-ka loo qiimeeyo. Danna halkan waxaa ku baran doontaa sida paraphrasing iyo plagiarism-ka marka loo xalliyo sababtoo ah similarity index-ka aad muhiim u tahay halkan markii la joogo. Sidoo kale sidee u samid gareyn karnaa manuscript-geena iyo qaybo dambe oo halka kusoo biirayo oo sida review-gii iyo waxyaabihii marka ma taqaanahay comment-yadii aan kula macaamilina journal-ka in halka lagu soo dari doono. So course aad u qurux badan rag badan ka faa'iideen dad qaatay ay article publish gareeyeen asaga naftirkiisa course-kan programka lagu qorayna oo publish gareysan yahay insha Allah ta'ala aad arki doontid ka faa'iideyso waxaan insha Allah ta'ala hambaliyana ku leeyahay halkan soo gaartay macnaheedu waxay tahay Diploma in Applied Research and Statistics way ku dhamaatay ama waad ogaatay wax walba ay tahay muhiimadda ay leedahay. So marka waxaad u baahan tahay course-kan si aad u qaadato in 5 course ka horeyso aad soo ka fargareyso macnaheedu iska qaada maaha way jiri karaan dad macallimiin professional fahansan qaybaha hoos oo dhan laakiin waxaan hubaa waxay tahay oo aan dareemayo qofka haduusan kama soo qabo fildigan research and statistics uusan ku jirin in waxyaabo badan qaybtan ka horeeyo adoo isleedahay qaybtan toos u gali kartaa ay ka maqayn oo ah in aad dib u soo organize gareyso deetana adigoo diyaar ah aad imaato hadii kale guul darro badan ayaa halkan kala kulmi doontaa hadii aadan safarka hoos ka soo bilaabin.